To rush and look for shortcuts will only bring ruin. Discipline, moderation, and positive thoughts are the pillars of a stable mind. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وويل كيني بيد إبراهيم maanta waxay noqon doontaa maalintii wareysay aan vlogger sameeyo oo ku saabsan subaxdeeda marka hadda soo kacay soo labistaa soo quracday waxaan u socdaa meeting insha Allah ilaa maalintii kalbarka waa inaan socodsiin doono haddana gaarigaan sii galaya ma jecel gaarana waa inaan wax duubo ilaa aan ka tagi doono goobta aan meeting ku leeyahay waxaan idin leeyahay nabadaan. Time is fleeting. Postpone nothing. وأيمان إن شاء الله حوالي نيروبي جام كذا شركة قال دانا then إن شاء الله we're gonna drop some nuggets. أوكي خذوا كود أرو هنا كاد لو حتى وحيابها كيني كرو إن هذا فوركس جول كجارن سير نخسر وحكيم ده ديسبلين كده ضد بدل ما يفوكس جران إنه برتان استراتيجية وحين كتجان كابتل سايكولوجي ديسبلين كده أنا يقول هلا سوق بقول كي بقول بقف بافكت مجد أنا يقول هلا قلاد بدل ما سميها balse mar walba waxaan isku dayaa inaan buugayga dib ugu laabto aan wax sixi karo marka qofka hadii uusan discipline lahayn kaliya ma ahan tradingka nolosha sideeda kala caadi qofka haduu discipline lahayn wax oo natiijo oo gaari karo malaha qodobka aan ka hadlayo waxay tahay discipline qodobka kale aan ka hadlayo waxay tahay risk management si walba da forex u taqaani istaraatiijiyada wada isticmaashid qof walba ay ku dhacdaa way igu soo dhacday adana kugu dhacdoon hadii aadan ka taxadirin qofka waa inuu leeyahay risk management hadii soo qaad account-ka haduusan ahayn profit waa account caadi ah oo real account broker ka furatay trade walba inaad isgaran kartaa ugu badnaan 3% ugu badnaan 3% marka waa inaad mar walba isticmaal kartaa risk management qodobka labaad waa qodobkaas qodobka saddexaad ka hadlayo waxay tahay patience inaad dulqaad leedahay ma ahan patience ka kaliya forex lagaaga raawo noloshaada caadiga ah haddaadan ahayn qof dulqaad badan waa adagta inaad guul gaartid mar walba aad trade qaadanaysid mise mar walba trade arabtid inaad qaadatid waa inaad ku dabaq kartaa patience qaybta afraad aan ka hadli rabo waxay tahay psychology waxaan ka hadlay dhan wax micno ay keenayso ma jirto haddii mindset-kaaga uu u diyaarsanaanin hab trading ah forex waa meesha kaliya ee ugu fudud lacag laga sameeyo haddana ugu dhib badan in lacag laga sameeyo waxaana keenayso in ay ugu dhib badnaato inay tahay psychology dadka badanaa waxay focus garaan istaraatiijiyad risk management tana fiican SMC ICT price trap waxyaabo aan loo joogin daba ordaan way fiican tahay inaad istaraatiijiyad lahaatid laakiin waxaa la rabaa focuskaaga inaad saartid mindsetka trading saa ugu dhisleed shout out macallinkayga muallimu muuqaalo badan waxaa jirta u diyaariya oo kaga hadlayo psychology-ga ani in badan iga caawiyeen waxaa jiro macallimiin kale sidoo kale oo ajaanib ah oo ka hadlayaan psychology tricks marka mar walba isku diyaari maskixiyan waana topic ugu muhiimsan waxaana ka dhigay topic ugu dambeeyay insha Allah vlogga waxaan rajeynayaa inuu qurux badnaado midkii igu horeeyay hadduu xumaado igu qaata insha Allah waan soo badi doonaa like-ta share-ka iyo subscribe-ka agtiina laga helo waa inuu Instagram-ka Med Ibrahim Abdi